maxaad ka ogtahay arrintii ka dhacday Nairobi ma prank bay ahayd mise arrin si dhaba u dhacday ayay ahayd waxaas mabruuka dhalinyartan waa dhalinyar Nairobi ku nool oo waliba waxaa la yiri mukhaadaraad fara badan isticmaasha oo la baxday team Kazo oo qabiilka ogaadina Soomaaliyeed ka dhashay dagaal magaalada ilaahu naxariisto marka arrinkan waxaa laga yaabaa dad fara badan waxay leeyihiin waa run dad fara badan waxay leeyihiin waa been aniga sidaan u arkay waxaan malaynayaa qofka Soomaaliga ah wax walba wuxuu sameyn karaa inuu caan noqdo arrintan ma jirtaa waa laga yaabaa arrintan ma jirto waa laga yaabaa God knows marka inay jirto iyo inay jireen marka qaarkood qofka Soomaaliga wuxuu sameyn karaa inuu isku soo qaawiyo buu sameyn karaa inuu caan noqdo public figure inuu noqdo inuu isqaawiyo baa ka suurtooda waan aragnaa waxa social media ka socda historygan iyo Said Cabdullah Xasan waxa weeye dad fara badan qofba wax uu ka aaminsan yahay qaar waxay ka aaminsan yihiin inuu ahaa nin wadankan u soo dagaalamay qaar waxay ku support gareeyeen inta dadka inta badan support gareynayso waxay ku support gareeyaan qabiil bay Saidka ku support gareeyaan Saidka saad u ogtihiin Maxamed Siyaad Barre markuu Ilaahu naxariistay Saidka Ilaahu naxariistay markuu madaxweyne noqday Siyaad Barre hooyadii ogaadeen bay ahayd for that being wuxuu ugu daray wadaadka historyga wuxuu ugu daray qaybta qabyaalada Soomaalina waaba kala guurtay moogtay dad fara badan oo uga haboonaayo xitaa dad fara badan laynin baa jira oo Soomaaliya inay wanaag ka shaqeeyaan sameeyay laakiin laguma soo darin laakiin historygu prank buu ahaa